madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta ballan qaaday in uu cafis madaxweyne ku sii daayay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland oo maxkamadda ciidamadu ay dhawaan xukun ku riday. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta kulan hadima sharafeed la qaatay qaar ka mid ah madax dhaqameedka beelaha Garxaajis ayaa waxa uu uga mahad celiyay sidii ay ugu soo dhaweeyeen gobolada bariga Soomaaliland waqtigii uu safarka ku marayay, waxaana uu madaxweynuhu ku wargeliyay in uu cafis u fidiyay Gaashaanle Axmed Cidib oo hore uga tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliland. Suldaan Cali Yuusuf Badacas oo ka mid ah madax dhaqameedka ka qayb galay hadima sharafeedkan ayaa waxa qaar ka mid ah warbaahinta uu ku sheegay in uu madaxweynuhu uu ku wargeliyay cafiska uu fidiyay sarkaalkaasi oo ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliland kaas oo dhawaan maxkamadda ciidamadu ay ku xukuntay 10 sano oo xadhig ah. Suldaan Badacas ayaa sheegay in sarkaalkan la xidhay kadib markii lagu xidhiidhiyay laguna eedeeyay in uu lug ku lahaa shaqaqooyinka beelaha ah ee ka dhacay gobolka Sanaag.